faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax barqadii maanta laga wada maqlay guud ahaan magaalada Muqdisho. Haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro, magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. Go'aanka bixistii joogista adiga ayaa leh, balse waxaan kaa codsan lahaa inaad ila joogto oo aad channelka subscribe saarto. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax barqadii maanta laga wada maqlay guud ahaan magaalada Muqdisho. qaraxa oo ahaa weerar ismidaamin ah ayaa waxaa lala eegtay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir gaashaanle sare Farxaan Maxamed Aadan qaaroole. xilliga qaraxa lagu weeraray kolonyada gaadiidka ee ula socday taliyaha qaybta guud ee booliska ayaa waxay marayeen wadada ka leexatay isgooska Banaadir ee aada Isbitaal Madiina isla markaana hormarta xerada ciidamada ee Villa Baydhabo. waxaana la sheegay in qaraxa lagu dhuftay gaarigu saarnaa taliya Farxaan qaaroole kaas oo ahaa nooca aan xabadu karin. walow ay ka badbaadeen isagii darwalkiisa, haddana burbur xoogan ayaa gaaray gaariga taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir. in ka badan 20 meeyo badan shacab ayaa ku waxyeeloobay weerarkan, dadkana waxay qaarkood gaaray dhaawacyo halis ah maadaama qaraxa uu saameeyo goobo shidaal oo goobta ka agdhawaa. mar kale ayuu jawiga goobta oo ay ka agdhawaayeen maqaayado iyo goobo kale oo ganacsi isku bedeleen holac, uuro iyo meedad iyo dhaawacyo la daadgureynayo sida ay sheegayaan goobjoogayaasha. waxaan magacaygu waa Xasan Xuseen Jimcaale dalwal mooto bajaaj waday ah. waxaan meeshii markii qaraxa dhacayay waxaan marayay isgooska Banaadir. waxaan markaan dhaafay qof bukaan ayaan waday, waxaan u waday Isbitaal Madiina ayaan u waday. inta aan gaaray isbitaalkii Madiina ayaa waxaa dhacay qarax oo zaa'id ah. qaraxii markuu dhacay waan bukaanadii waa soo laabtay isbitaalka nin dad ila socday oo mooto aniga iga gadaaleeday oo wax jaam oo celiyay wiil oo saaxiibad nahay iyo gabar ayaa ku dhintay meesha. dhimashadii aan arkay waxa waa 8 qofood, dhaawacna waa 6 qofood. intaas ayaan goobjoog ahay. meesha waxaa dukaan iyo maqaayad isku dhagan maqaayadna gurulaasha iskale, dukaanka waxaa iskale wiilaalkay qowdooda way ka maqnaayeen gaariga maqaayad horta isku qarxay dukaanka hortiisa. halkaas meesha eber waa mudadiino waa burburtay. intaas waaye 3 qof maqaayad dhexdooda ku dhimatay lahay. maqaayada dad ku jiray xilliga dhacay dad ku jiray 3 qof oo ku shaqeyso oo maqaayada habeenka lagu shaqeeyo maalinta ma la furo. 3 qof alaabta dhaqay saaki maadaama ku dhimatay maqaayada. ma laha maqaayada mise gordubashada iskale maqaayada. waa tahay ayada markuu ku dad qarxay soo ma joogto iyadoo maqan tahay ka maqneed. dadka ku runtii ma istaqaanaa waa isnaqaana wiilal isnaqaana kunteen oo 3 qof ku dhawaad 5 qof oo 3 ka mid ah shacab ay yihiin ayaa la xaqiijiyay geeridooda. taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Korneel Farxaan Maxamed Aadan oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in qaraxa isaga la beegsaday balse uu ka badbaaday. afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo goobta qaraxa warbaahinta kula hadlay waxa uu tilmaamay in dad shacab ay weerarka ku waxyeeloobeen, isagoo sidoo kale tilmaamay in askarta ilaalada u ahayd taliya Farxaan qaaroole sidoo kalena ay halkaas ku geeriyoodeen, walow uu sheegay in taliyaha iyo darwalkiisa ay weerarka ka badbaadeen. maantay 10 Juulaay 2021 abaar 10 subaxnimo ayaa qoliyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay daadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexatay isgoyska Banaadir ee aada Isbitaal Madiina ilaa Villa Baydhabo xaggeeda. meeshaan hadda taagannahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay baneystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa ama meesha marayay. qaraxa argagixisadu ay la beegsatay Ilaahay xamdigiis taliyuhu uu ka badbaaday, walow uu jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya wadada. khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ah goobta ku sugnaa. khasaaraha ayaa isugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxa argagixisadu ay soo maleegeen, walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin Ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo, laakiin uu jiro khasaare dad shacab soo gaaray. inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay. mana jiraan wax khasaare inta ka badan oo qaraxu uu reebay. argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed. mar aan Ilaahay hadduu yiraahdo cadaaladda ayaa idin horkeeni doona, waan idin kula xisaabtami doonaa. mana qalqal gelin doonto, mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay. in argagixisadu ay qof iyo 2 nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda. horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kala dad maaraysan
laakiin argagixisadu wax intaa ka badan ay sameyn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogiin marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayo adeega ummadda loo hayo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu 8 bari gudahood waa weerarkii labaad oo ismiidaamin ayuu kani ahaa waxaana ku horeeyay qarax nin isku soo xiray waxyaabaha qaraxa jimcadii toddobaadkii hore uu ku beegsaday goob maqaaxi ah oo ku dhow isgooska Jubbo al-shabaab ayaa durbas sheegtay mas'uuliyadda weerarkan lala beegsaday taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir gaashaanle sare Farxaan Maxamuud Aadan Korneel Farxaan ayaa 12 Abriil ee sanadan loo dalacsiiyay darajada gaashaanle sare ka gadaal markii uu qabtay taliska booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir waxa uu horay u soo noqday taliyihii ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad isagoo ka mid ahaa saraakiishii laga soo dalacsiiyay hay'adda nabad-sugidda Sirdoonka qaranka NISA dhexdeedana waxa uu mar ka soo noqday taliyaha ICU-da nabad-sugidda